waxaan ku leenahay naga guddoon saaxiib soo dhawow waa mahadsantahay السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته صاحب يال أد بندي سلامينا سود وهذا مركله وبرنامج كيني طبعا كبحي شري channel كينا أحمد داود channel أو أنا إسكو صار نقولنا مركله برنامج كينا ما أنت وحدارين يهي أرن حساسية وحال كان يلد شوقة صاحب كي فهمي أو يسقون رنتي كقيب قادم دونا برنامج كينا ما أنت أنا أينو بدون سين دونا هدية دي يا أبال مرنتي وكجسوا شوابي سؤاله بابليك آها أينو صارق نمرك channel كينا طبعا برنامجكي ku guuleysay dalxiis waxa ku dhex jiray su'aal public ahayd oo aan ugu tala galay bulshada iyaduna nagu xiran ee na daawata in iyaguna guuleystayaal noqon karaan had iyo jeer marka su'aashii buu ka soo jawaabay maadaama su'aashii ka soo jawaabay maanta hadiyad baan markaa bixin doonaa hadiyadaas oo waliba lacaga insha Allah qadarkeedu kulli sheegi mayno waa maasantiin fahmi soo dhaw ku soo dhaw baan ku leeyahay markasta maadaama markii ugu horeysay aad ka soo muuqan doonto channelkeena ay tahay maxaad leedahay asxaabteena أصحابت وحلا هاي ما شاء الله حتى channel كان channel هذا فعلا الروحات يدي الكلام أهم حاجة يقولها كحرا أحمد داود كحرا مركا ورطة أنا روحات اسمه اللحين سؤال هتكسر جوابتها لابد السنة أو حقا العجا قدره لكن أنا لحبت لو كل أي رأي اللي يقولي برنامج كسافة يقولي ستي الفضل السعودي ونوك علي الحمد لله waxaan leeyahay dadweynaha bulshada ku xiran channel-ka ku soo dhawaada walaal YouTube-ka oo idinku ka qayb gala subscribe saaro la socdo su'aalaha iyo jawaab soo dhigayo inta xiisyada ka faysto la welcome waa maasantahay fahmi haddana waxaan diyaar u nahay inaan saaxiibkeen guddoonsiino hadiyadii runtii uu ku guuleystay hadiyadaas runtii aan hadiyad weyn ahayn laakiin aynu u garanay qalbi ahaan marka qalbi ahaan way nagu weyntay marka waxaan ku leenahay naga guddoon saaxiib soo dhawow waa maasantahay fahmiyow saaxiib maadaama marka hore lacagtiina ku guuleysatay abaalmarintii hadiyadii waxaan jeclaystay barnaamijka laftiisana inaan kugu casuumo aad markaa nagala qayb gasho su'aalihii aynu isweydiinayna si aad ugu guuleysan kartayda lafteeda dalxiiska ka war ma tartamaysa dalxiiska yes why hadda anigoo su'aalkii ka soo jawaabaan soo biiray kanalkii channelka YouTube-kii hadda su'aalaha iska daayay wixii dalxiis iyo wixii la socdo dhanba waa ku dhawaa saaxiib soo dhawaan ku leeyahay waa inoo tartanka iyo inaan hore sii socono waa mahadsantihiin saaxiibayaal waxaa hore tartankan ugu jiray aniga iyo Cabdiraxmaan Xarago anagoo markaa tartanka foodaystarnay markii hore balse laakiin challenge-gii anigu aan ku haray isagu guuleysta ahaa maanta markaa waxaa tartan ka qayb geli doona walaalkeen Maxamed oo marti ku ah barnaamijkan iyo walaalkeen Fahmi oo anigu markaa aan daadihin doono barnaamijka waxaan leeyahay soo dhawaada bal nabad daawada oo su'aalaha qaybta bulshada ku socotana ka soo jawaab insha Allah bismillaahir rahmaanir rahiim barnaamijkeena ma bilaaban doona su'aalaha su'aasha ugu horeysa ee aan weydiin doono asxaabta waxa weeye maxamed baa ka horeyn doono sheeg shaqada uu qabto maqaarka aadanuhu maqaarka aadanuhu shaqada uu qabto haddii aan isku dayo waa dee excretion micnihii qashin saar wuxuu dhididka ka soo saaraa af Soomaali ma qashin saar wuxuu dhididka iyo wasaqda ka soo saaraa dee jirka maqaarka bilaadanka jirka ayuu ka soo saaraa maqaarka jirka qashin saarka waa qashin saar dee dhididka iyo waxyaabaha ayuu ka keenaa dee sax waxa ku xiga fahmi sheeg sanadkii ugu horeeyay ee bacda la soo saaro bacdana ay maxkuridana sanadkii ugu horeeyay la soo saaro su'aasha haddii aad isku dhisay bacda soo saaro waa 1990 09 صح Somali 1900 iyo
kun sagaal boqol iyo sagaashankii. sagaashankii Ah, 90 bay noqonaysaa 90. kun sagaal boqol iyo sagaal. 1909 saas noqonaysaa. su-aashaas waxaan maraynaa su-aashii labaad tan hadda waa tii saddexaad. sheeg soodinta kala qaybisa Afrika iyo Aasiya maxamed Soohdinta kala qaybisa Aasiya iyo Afrika waa webiga Nile. webiga Nile ka faa'iideyso Sida kala qaybisa soodinta kala qaybisa Afrika iyo Aasiya waa maasantiin labadiinaba waa dayd ka gudubtay su-aasha markan waxaa iskale fahmi baa ka jawaabi doona su-aashaas fahmi waxay ku odhanaysaa sheeg kumuu ahaa mu'adinkii rasuulka su-aasha hadda isku dayo su-aal keliya alxamdulilah waxa weeyaan su-aasha hadda isku dayo wuxuu ahaa mu'adinkii rasuulka sallallahu alayhi wasallam bilaal bin rawaax بن رواح ايوه ما شاء الله سؤاشا waxaa iskale maxamed waana su-aashii shanaad sax. sheeg buurta ugu dheer Soomaalida gobolka ay ku taalo waaba u socdaay dee markaan dalxiiska guulaysta aadi rabaayo waa Sanaag. buurta ugu dheer Soomaalidu waxay ku taalaa gobolka Sanaag. su-aashaas waa sax igu dhiibe su-aashii lixaad sami waxaad sheegtaa waa maxay shayga keliya ee uu arko indhoolu شيء كليا هو قف دهلا horta qof indhala laakiin sax uu arkaa waa yaa laakiin su'aasha hadda isku dayo wuxuu arkaa waa meelayaa riyada riyada sax su-aashaasi su'aal adag oo jawaabteedii leeday igu dhib maxamed waa su-aashii toddobaad sheeg muddada uu nibirigu uurka ku sido ilmihiisa muddada uu nibirigu ilmaha uurka uu ku sido nibiriga kii badda ku jiray waa 12 bilood. 12 bilood noqonaysa maalmaha ma maalmaad doonaysaa? laa ilaaha 336 maalmood ma qalad baa? 36 maalmood 36 cisho 333 maalmood iga qaldanta horta 360 markaasaa ku hadhay صدح بقول يوم سنة كبار سنة كله قمية يا sanadku waa meeqa maalin oo kale صدق ساشات يا سكرت يا ما سنتين ساشا وكيت ورطو سند وي اي تضمان با دبا دغيو maalmaha hadda in la kartaa muhiim hadii su'aasha waxa iskala fahmi oo sida ay guutada ma ay way ku jirtaa ay 156 maalmood way laakiin sanadkii baad sheegtay sanadkuna 12 bilood su-aashii sideedaade webiga Jubba halka uu ku dhamaado su-aasha haddii aan isku dayo webiga Jubba wuxuu ku dhamaadaa oo ku biiraa weliba meel la yidhaahdo Goobweyn wuxuu ku biiraa oo ku dhamaadaa meel la yidhaahdo Goobweyn oo 25 kilomitir jirta Kismaayo wuxuu ku dhamaadaa Goobweyn oo 25 kilomitir u jirta Kismaayo su-aashaas waa sax ودي محمد سؤال كنتشينا وقف اسلا سؤال سقالات محمد شيء مقالة عالمك وقديم سن مقالة عالمك وقديم هرت فلسطين كتالا فلسطين ايه مقعدنا و فلسطين مركز محلو يقاني استندينية ميا استندينية ساعة شام ماي أرض شام ما قستندينية ما هي وايك جواب مقالة و استنتينية ميا حساوي horta wadanka hadaa sheegay magaalada waa caadiye sheeg magaalada caalamka ugu qadiimsan halka ay ku tahay Falastiin Falastiin dee Falastiin waa Carabi waa sax wey magaalada buurta Afrika ugu dheer Kilimanjaro wadanka ay ku taalo Kamiyo ya Kilimanjaro ma Kilimanjaro ugu dheer Afrika wadanka ay ku taalo niyahow garan maayo laakiin hadda isku dayo waxay xuduud u dhaxaysaa Kenya iyo Tanzania waxay ku taalaa wadamada Tanzania iyo Kenya
وصح سؤال صح صاحب يال ترتن كمان تاينو قال لي waxaa ku jiray maxamed iyo fahmi laba guulood buu wata hadda labada guulood oo wato ta koobaad waxa weeye tii hore ee su'aashii ka soo jawaabay xagga commentiga ee dadweynaha tartankan hadda uu la galay maxamed isaga kaalinta isaga haysta oo waxaan ku leeyahay mar kale fahmiyow aanbaliyo thank you saaxib wuxuu haddaba tartanka labaad la geli doonaa wiilkii hore isna u guuleystay ee Cabdiraxmaan Xarago iyo fahmi baa tartan siminaal wada geli doona ninkii Rome baa reerka u hari doona kadibna su'aalaha dambe challenge-gana la socda insha Allah guuleystuhuna hubaal dalxiisa weey aan u damaanad qaadayna inuu dalxiisi doono insha Allah billahi kareem tartankaas aad aragtaa wallahi barnaamijka aad fiican oo waxa ku tartankaas waa tartan aad fiican weeyaan dadweynaha waxaan kula talinayaa tartanka faa'iideysta oo su'aalaha soo wadiyo comment-ga ka soo jawaaba dalxiiskuna waa jiraa kulli wada gobolada aad aan wada tagin gobolada jacayl warta la soo dhameystiro insha Allah barnaamijyada dabban ee quruxda badan leh waxaan rajeynayaa from Dubai Bangladesh lukide balaqadada lahaay fiicnaa inuu sii tagi doono insha Allah fahmi oo maasantahay fahmi inoo sheegay waxa mar walba dhextaal inoo ah su'aal aan ugu talagalay dadweynaha su'aashaas oo markaan jeclaysanay inay iyaguna sida fahmi oo kale uga faa'iideystaan daawadayaasha daawan doona barnaamijkan dhinaca TikTok-ga dhinaca YouTube channel-ka aynu ku leenahay Axmed Daawud channel Facebook page-ka dhammaan waa ka soo dhiiban kartaan su'aalihiina insha Allah jawaabaha waananu soo deyn doonaa oo aan soo gelin doonaa waxaan rajayn doonaa barnaamijkan inuu gobolada u safri doono xilliyada kamid ah oo magaalo kasta halkeeda aan ugu tagi doono inta ka horeysana magaalo kasta soo camirto from Burco from Boorama from Hargeysa from Muqdisho hal idin arko insha Allah su'aasha dadweynuhu waa maxay hadaba maanta aan u wado su'aasha dadweynuhu waxa weeye sheeg imisa ayay ahaayeen ciidamadii muslimiinta ee ka qayb galay dagaalkii Badr tiradoodu dagaalkii Badr muslimiintii ka qayb gashay dagaalkaasi imisa qof ayay ahaayeen tiradoodu waa su'aasha aan jecelahay inaad ka soo jawaabtaan oo commentiga shanta qof ee ugu horeysa natiijooyin kala duwan oo qurux badan bay yeelan doonaan laakiin mar walba kaalinta koobaad iska xaadir insha Allah waa maasantiin ka soo jawaaba su'aasha dadweynuhu waxa weeye sheeg imisa ayay ahaayeen ciidamadii muslimiinta ee ka qayb galay dagaalkii Badr laba qof hadee loo lantana mid baa mar walba guusha ay raacdaa walaalkay fahmi waa dadka commentiga soo qoray oo haddana ku guuleystay oo haddana dalxiiskii oo haddana ku sii guuleystay inkastoo aniga haleeli waayay haddana waa ku faraxsan inuu guuleysto waxaan ku leeyahay walaal hambalyo